عبد العسمان دغوينو dadweynaha gobolka Awdal way ku ogyihiin Muusow adiguna wixii kugu jiray waad sheegtay waanad ku mahadsan tahay mid dadka mideeyana waad noqotay waanad namideysay waad mahadsan tahay wasiirka iminka xilka laga qaaday aragtidiisii waa uu ka hadlay aragtida uu ku hadlayna waa shicibka gobolka Awdal waxay aaminsan yihiin weeyaan waana la qabnaa waana ku taageersanahay dalkii waad kala dirtay waad dirtay maxaan ku yiraahdaa sool waad dirtay yaa Awdalna waad diraysaaye deena dirde degdeg waan degdegaynaaye nadirniyo haysi daayad ogeyd aani xoorkii ma dhimin waa Muusaada xigiya ramashkii ka baxay intuu xawayaan dhax galay iyo sheedan ku xasreynaya ka quusatay soo noqoshan ma leh gobolka Awdalna waxaad ku waay doontaa shacbiga ku dhaqan magaalada Boorama ayaa ka hadlay sida uu arkaan xilka qaadista madaxweyne Biixi uu ku sameeyay wasiirka hore maalgashiga Soomaaliland Mudane Cabdi Cismaan Dagaweyne oo dhawaan uu sheegay in uu la dareeyay dadkiisa isla markaasina uu qirsan yahay tabashada gobolka Awdal shacbigu sidoo kale waxay fariin u direen madaxweyne Biixi anigoo eegaya isku shaandhayntii shalay toona dhacday Cabdi Cismaan Dagaweyne kiisa hadalkii aad tiri iyo xaqiiqdii aad sheegtay dadweynaha gobolka Awdal iyo dhalinyaraduba way ku ogtahay waana ku ognahay nin magac leh iyo maamuus labaanad xageega aad ka tahay waana ku ixtiraamayna taariikhduna way isqortaa buuga taariikhdaad gashay madaxweynahana mid baan ku oranayaa Muuse Biixi haddii aad leedahay Muusow dadkaanu riciyad baan ka dhigto cidiyayna xaqiiqda ii sheegin Cabdi Cismaan Dagaweyne de riciyad ma hayna kuwa riciyad ku noqda waad heli Muusow waad heli shalay toole laascaanood baa tagtay halkii aad ka daweyn lahayd tabashada iyo dadkeed oran lahayd waa ninkaasi xaqiiqdii buu sheegay balan isku soo dhawaano ayaaba tiri maadaama uu ninkaasi hadlay xilkii baan ka qaaday isku shaandhayn ma sameynaya kolka Cabdi Cismaan Dagaweyne dadweynaha gobolka Awdal way ku ogyihiin Muusow adiguna wixii kugu jiray waad sheegtay xaqiiqdaadina waad sheegtay waanad ku mahadsan tahay mid dadka mideeyana waad noqotay waanad namideysay waad mahadsan dan aragtiyaan ka dhiibto kullay gobolkan Awdal dadka waxa weyn masiirkooga ka hadla ee wuxuu doonayaa ee saami qaybsigooga ka hadla mar walba dawlad walba oo joogtay waxay la tahay waxay ku tahay lidig madaxweynuhu waxa looga fadhiyay waxa weeyaan inuu waxa weeyaan gobolkan saami qaybsigiisa oo waxa weeyaan wuxuuga uu bixiyo oo ka hadlo ninka Dagaweynena wasiirka iminka xilka laga qaaday aragtidiisii waa uu ka hadlay aragtida uu ku hadlayna waa shicibka gobolka Awdal waxay aaminsan yihiin weeyaan waana la qabnaa waana ku taageersanahay laakiin waxa weeyaan arinkaas uu waxa weeyaan madaxweynuhu ku kacay isku shaadhayntaasi cadaalad darro waxa uu leeyahay gobolka Awdal wuxuu noo cadeeyay madaxweynuhu inuunan gobolkan waxba aanu nahay anaguna waxba uma hayno waxaan ugu baaqayaa waxa weeyaan cadaalad ba laga doonay cadaalad darro laga sugaynay cidii cadaaladda ku sheegaysay Dagaweynuhu haye cadaalad darradii baad raacday halka ku goysan sugayna oo kulay xisbiga kulmiye cida fikirkiisa qabta umu qaadanaya cida fikirka gobolka dareenka gobolka ama shacabka gobolka matala looma baahna taasina waxa keenay wasiirada uma wuxuu yeedhiyay sababta waxaan aaminsanahay ninka shacabka la dareenaya aan la rabin laakiin fikirka xisbiga kulmiye ama dawladda ninka ka hadlaya in la garanayo marka waan ka soo horjeedaa mid kale waxaan ka ugu booqay gobolka Awdal wararkii shalay uu hadlayay Soomaaliland difaaciyay ama difaaciyay wax saaran lagu filan Cabdi Cismaan Dagaweyne oo shalay dareenka shacabka ku hadlayay kaasoo durba la gareeyay suufic fikirka shacabka gudbiya halkii markaa ka hadlaya ma taageeray tusaalantaas ugu filan marka dadku waxay sugayeen ama la aaminsanaa soo shanay wasiir misaale darteed waa reer Boorama waxaan leeyahay dawladda kulmiye waxba inima hayso horeysa dambe saadada waxaan leeyahay halaga tashado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه isku shaandhaynta shalay wasiirada ayaa uu sameeyay madaxweyne Muuse Biixi hadda yaana kulli dareenka gobolada Awdal iyo Saleem waxba kama bedelayso isku shaandhayntaasi iyadii oo bedelay macna xilka qaadis ku sameeyay haliyayga dadkiisa la dareenka Cabdi Cismaan Dagaweyne oo ah haliyay dadkiisa la dareena gobolka Awdal taa darteed oo ku yaacay macnaha la dareen baan ahayd hawlaha ku waayay xilkiisa ku waayay waxaan u hambalyeynaa Cabdi Cismaan Dagaweyne Muuse Biixina waxaan leenahay sida kulli gobolka Soolahay yaana hay isku hadu mudaysan yaana isku raaceen oo kale in isku raacaan uu ka wadaan maleynaya Muuse Biixi yaana kulli markaan aragno sida wax u dhigayo waxaan leenahay dadka gobolka Awdal isku xidhnaasho iyo waxaan u rajaynayaa insha Allah inay guul gaaraan
iyagii oonan wax dhib aan samaynayn iyagii wixii danooga ka tashanaya iyagii oo yacni baddooda soo furan lahaayeen sidaasaan rajaynaynaa waxaanan aad u hambalyeynaa cabdi cismaan dhegaweyne sida dadkiisa ula daran yahay sir cabdi cismaan dhegaweyne aad iyo aad baan u salaamayaa taariikh buu ka tegey wuxuu qoray maxaan ku dhahdaa iskoor aan wasiiradii hore reer awdal qori jirin ayuu qoray wuxuu yidhi dadkaygaan la dareenahay buu yidhi maadaama uu yidhi dadkaygaan la dareenahay annaguna saaxiib kula dareen baan nahay waad mahadsan tahay aad baan mataqaanaa kuu soo dhowaynaynaa dadka reer booramana waxaan farayaa iyo dhammaan reer awdal inay u soo dhoweeyaan cismaan dhegaweyne si milgale oo sharaf leh maadaama uu xilkiisii ku waayey dadkaygaan la dareenahay dadkaygaan la dareenahay maadaama uu xilkiisii ku waayey waa in reer awdalna iyo samaroon dhammaantoodna ay si fiican oo gobonnimo leh u soo dhoweeyaan muuse biixina waxaan leenahay adeer dee dalkii waad kala dirtay waad dirtay maxaanku idhaahdaa sool waad dirtay awdalna waad diraysaaye dee na dirdee degdeg waan degdegaynaaye na dirniyo muusow dhaqsaa noo dir oo na xumee oo nagu guji si aan u soconno dee ila intaasaa doonaysaa wax kale ma doonaysidee somalilan waad kala dirtay iminka waxayd isku shaandhayntani inaad dadkii maxaanku idhahdaa dadkii qaranka fashiliyey inaad isku shaandhaynta ka saartaabay ahayd oo rag kale aad keento oo waddankan dee ka saara dhiidhida ka saara dhiiqaad lugaha la gashay muusow dhiiqaad lugaha kula jirtaa wallaahi dhagaweynena aad iyo aad baan u salaamayaa soo dhowow saaxiib milgo waxaan u arkaa maxaan isku shaandhayntii ugu xumayd baan u arkaa abid hadalkaana waa hadalkii wasiirku maxaan ku dhahdaa madashii ka yidhi ayuu maan u arkaa in wasiirka ay galaafatay maadaama dee wasiirkan waa taageersanahay aad baan u taageersanay cabdi cismaan dhegaweyne waana soo dhoweynayaa maadaama uu dadkiisii la dareen yahay aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa waxa weeye waxaan u arkaa anigu inuu gobolka awdal meel kaga dhacay maadaama uu ka bedelay cabdi cismaan dhegaweyne oo uu ku bedelay ninka la yidhaahdo xildhibaankii ahaa xisbiga kulmiye ahaa oo wada garanayno gobolka awdal buu meel kaga dhacay muuse biixi baan leeyahay waxa weeye waa dembi uu ka galay gobolka muuse biixi wasalaamu calaykum aad qayb badan ugu leeyahay gobolka ku leh culays badan ku leh miisaan weyn ku laha horta taasoo meel ka dhicid weeyaan in dadka macnaha fahmiga la isku jeebiyay anagu raali kama nin cabdi cismaan uu taageersanay موافقة وتاجنا ونتاجنا لا جيل يعني حرجي حيث كده عيد أوجي عاني حوركي مدمن وموصادة حيجي خمس كي كبحي أنتوا حويان ده قالي يوسف دانكو حضرين وحويان أنا وحي عند الدولة دي عند السيء لقاه وجوجي هذا منطقة يكون على صوت القصاص قبل كعوض أنا أقولس جيل الحرجي ينقط وحنا نقول لك كوكب قبل لكن نبت جريدة كصعيدة نبت جريدة يساقوا إنه يقول إنه دوقل موصادة على كوكب دوقل هذا عثمان دقوينا يقام مدينة نقطة مركز سوريسيوم cismaan dhegaweyne wuxuu la daran yahay waa shacabka gobolka awdal waa anaga mar haday waxa weeyaan uu yiri waxaan la dareenahay waxa shacabka gobolka awdal waa nin haliyay ah in gobolka awdal meesha laga soo galayo ee controlka looga dhiso ii sheegeen taalo looga dhiso ayuu mudan yahay cismaan dhegaweyne dadkaaga la dareentay dadkaaga ku jecel xukuumaddan way gudaysay xukuumaddan kulmiye way gudaysay waa gaarigii u rogmaday ilaahay ka soo saara mahadale muusabix muusow samaroon way haysteen hoosta laga guuxay laakiinse waa midays waxa ku madaysayna waxa weeyaan ninkii waxa weeyaan maanta gobolka awdal ninkii la dareen ah unbaa waxa weeyaan ay ku qanacsan yihiin موسى سولتكتي كقوستي صنقشان ماله قبل كأوضلنا واحد كواي دونتها اسمه دقوي أنا قلت ما أنت واحد ربع مدحوينها أما حكومة دمارة سومالن كل مية واحد ربع قفوا وزيركم مسؤولكم ما شو دونا بهاي هدي حيورها وحوين حلكة وحنوها يا أم الضيدة أما waxaan la dareenahay dadkayga iyo dalkayga iyo gobolkayga la dareenahay xilka ma laga qaadaya ma lagu waayay waxa markaa soo in qofka ibn aadanka ee mas'uuliyadda la saaray waxa weyn tabashada dadkayga taagta dadkayga iyo tamarta dadkayga la socda haduu raaxo hadii xilka lagu waayo anu ma aqaan waxa weyn xukuumaddan kulmiye meel ay ku socoto waxa taaka la dareenahay wasiir cabdi cismaan dhegaweyne oo runtii shalay xilka ka qaaday musabixi wuxuuna xilka uga qaadayahay dadkayga la dareenahay marka aad iyo aad baan wasiirka u taageeraynaa waana taageersanahay muusana qof buu wadaa
sool waa loogaayo runtii waa ka baxeen oo waa ka goosteen ree awdalla maanta ugu dambaysa maadaama wasiirkooda idaacadda ahaa wasiirkooda arrimahooda ka shaqaynayay uu xilkii ka qaaday xilkana uga qaaday dadkayga la dareenahay annana insha Allah runtii waa raacayna kabana hareeno maamulkana waa iska qabanayna insha Allah waxaan soo dhaweynayaa wasiir Cismaan Dhagaweyne horta marka hore waxa weeyaan ninka bulshada ree awdalla la dareena in la eriyo ree awdalla wada aragtaa yaa waxa weyn raado ayina ka tashada waxa weyn nimanka waxa weeyaan gobolka le waxa ku haynaale ee beenta noo sheegaya waxa salaamo shaqaynayso ninka daacadda ee dadka la dareemo la area hii kale waa soo dhaweysanaya waxa weyn maanta ninkii gobolka matalay ee u dhaqaaqay oo taaleeri ya raadolow dawada artante waa artante ya xukuumadii artan ya raasola waxaas ma ka kaceen hadaba tashan weeyaan dawladii tashan maysaan ya bay faantay marka adantina garta waa ayna garta oo dadkina raaca hawlahan shalay toole ka bilaabmay isku bedelaada waxaan u aragnaa annagu in wasiirkii uu hadlayay magaca gobolka awdal uu ka qaaday xilkii sidee baad uga hadashaa danta gobolka awdal kiisa la dag u sideeyayna uu ku bedelay marka annagu taasaannu aragnaa maanta dabadeed waannu ka guurnayba meeshiisi halku waxu doonanayana isagay u taallaa in wasiirkaygii cabdi cismaan dhegaweyne au soo jeediyaha matalaadda gobolka awdal oo au yidhi dadkayga gobolka awdal baan la dareenahay taa awgeedna uu xilgiisii ku waayo saa uu ku eriyo shaqadiisii kaga tegey annaguna haddii aan nahay dhallinyarta gobolka awdal annagoo ku hadlayna afka gobolka awdal dhallinyartooda arrinkaa wasiirkaan taageersannahay waxaana leenahay waxallo wixii kale wasiirey xilkaa iyo gobolka awdal waa sidaa wasiir cabdi cismaan dhegaweyne au yeela danteenniyo aayaheenniyo gobolka awdalna ka tashada dhallinyarta gobolka awdalna waxaan leeyahay waan hurudnaayo soo toosa hurdada ka soo toosa aayaheenniyo gobolkeennana aad han uga tashanno arrinkaa wasiirkana han raacan oon aad u taageerno wasiirkana waan soo dhaweynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi